danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa si cad u beeniyay jiritaanka kulan dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Kenya kadib markii wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya uu daabacay waraysi uu ku sheegay in safiirka Mareykanka ee dalka Kenya uu kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya sida wargeyska uu qoray ayuu sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo safiirka dalka Kenya ee Mareykanka safiirka Mareykanka ee dalka Kenya ay ku kulmeen magaalada Muqdisho isla markaasna ay ka wada hadleen arrinka muranka badda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Ambassador Tarsan ayuu ku sheegay in dhowr bilood ka hor uu safiirka Mareykanka booqasho ku tagay magaalada Muqdisho balse aysan dhicin kulan dhex maray isaga iyo madaxweyne Farmaajo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in uusan dhicin kulan dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya xilli uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho oo ahayd dhowr bilood ka hor ayuu yiri Ambassador Tarsan sidoo kale Tarsan ayaa waxa uu soo jeediyay wargeyska Daily Nation in uu iska hubiyo wararka uu faafinayo dhanka kale safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya ayaa waxa uu beeniyay in uu magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay safiirku in markii uu yimid Muqdisho uusan la kulmin madaxweynaha hase yeeshee ay wada kulmeen qaar ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in uusan kala hadlin la taliyaasha madaxweynaha aragtidooda ku aadan in Mareykanku uu fududeynayo in Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadlaan arrinka muranka badda Kenya ay gelisay ee Soomaaliya ugu dambeyn qoraalkiisa ayuu waxa uu ku soo gabagabeeyay in labada dowladood Soomaaliya iyo Kenya kaliya cadowgoodu uu yahay Al-Shabaab loogana baahan yahay in ay u midoobaan isla markaasna meel qura loogu sii wada jeesto sidii Al-Shabaab looga saari lahaa gobolka Maxamed Cabduqaadir Silva Galmudug TV